soo dhawaada daawadayaal. Inta badan waxaa jira waxyaabo ay dadku neceb yihiin markastoo ay arkaan ama ay maqlaan ay dareemaan nasiib xumo ama ay baasaysaan oo ay ka malaysaan shar iyo dhib. Tusaale ahaan, guumaysu waxa ay ka mid tahay shimbiraha dhulkeena ku nool. Dadkeenu way neceb yihiin waana ay ka baasaysaan oo marka ay arkaan amaba haddii ay guumaysu guri soo dul istaagto mala xun ayaa laga filan jiray. Haddaba waxaa jira dad sidaas oo kale ah, kuwaas oo laga baasaysto marka la arkana la xasuusto nasiib xumada loona maleeyo inuu qofkaasi hagaardaamooyinka jaalle yahay. Maanta waxa aynu eegi doonaa nin ka mid ah ragga ugu waaweyn ee laga baasaysto dhulka Carabta, kaas oo maahmaahyo iyo halkudhig caan noqdayna laga sameeyay. Bal aynu isla wada eegno sababta ninkan looga baasaysan jiray. Magaciisu waa Ciise bin Maxamed. waxa uu la baxay Daa'uus, laakiin dadkii baa u bedelay uguna yeeri jiray Duways. Maalin ayay dad weydiiyeen oo ay ku yiraahdeen, war horta Duwayso waa maxay sababta lagaaga baasaysto? Kadibna waxa uu ku yiri, maalintii aan dhashay ayuu dhintay rasuulku sallallahu alayhi wasallam, sidoo kalena maalintii ay hooyaday nuujinta iga joojisay ama naaska la iga joojiyay ayaa uu dhintay Abubakar. Isla maalintii la guday ama la xalaaleeyna waxa dhintay Umar bin Khadaab. Sidoo kalena maalintii aan guursaday ayaa la dilay Usmaan bin Affan. Markii uu halkaas marayay ayay dadkii ku qayliyeen oo ay ku yiraahdeen, warwad ayaa xuntahay Madiina nooga bax. oo Madiina ayuu ku noolaa. Saa inta uu qoslay ayaa uu ku yiri, maalintiina kayga curadii dhashay ayaa sidoo kalena la dilay Ali bin Abi Talib. waxa kale oo la sheegay in wiil loo dhalay maalintii la dilay Hussein bin Ali bin Abi Talib. sidaas ayuu ku noqday mid laga baasaysto oo la sharaysto. Duways waxa uu ahaa nin aad u qurux badan oo afmishaar ah, gabiya, sidoo kalena kala yaqaan qabaa'ilka Carbeed, aadna u xifdisan gabayadoodii. waxa uu ahaa nin dadka kaga qosliya oo maad badan, sidoo kalena waxa uu ahaa heesaa cod macaan oo aad u tumi yaqaan durbaanka. sidaasna waxa uu ku noqday qofkii ugu horeeyay ee Carabi kaga heesa Madiina. inta badanna dadku way u soo madadaalo doonan jireen. Duways waxa uu ahaa ku qabaa'ilka isku dira oo ku heesa gabayadii ay isku caayi jireen xilliyadii islaamka ka hor. wata qisadii Duways, maalin kasta oo isaga ama qoyskiisu ay faraxsanaayeenna waxa ay oohin iyo murugo u ahay dadka muslimiinta ah, waana sababtaas ay dadku u baasaysan jireen.